السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو dhawaada barnaamijkeeni xuuraansi oo xilligan kale aad nooga barateen inaan idinka soo baahino halkan waa shaashada telefishinka TTN guud ahaan caalamka waad naga heli kartaan sidoo kale baraheena bulshada ayaan idinkula wadaagnaa barnaamijyada iyo warbixinada halkan aan ka baahino muqdisho haddii aan ka bilowno waxaa si habsami leh uga socda dhaqdhaqaaqa iyo ololaha xooggan ee kala jiidashada musharaxiinta ku loolamaya kursiga gudoomiyaha golaha shacabka oo dhowaan uu baneeyay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo afartii sano ee lasoo dhaafay kursigaasi ku fadhiyay kursigan ayaa waxaa ku loolamaya jamaahiir culus waxaase ugu cadcada wasiirka dekedaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ku magac dheer madaxa furan si kale haddii loo dhigana waa saaxiibka dhow ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga ayaana loo badinayaa in kursigaasi uu ku soo bixi doono maadaama qofka villa Soomaaliya ay wadato ay inta badanba suurtagal tahay in uu yimaado ama uu maro goobaha ay villa Soomaaliya iyadu danaha ka leedahay sidoo kale muqdisho waxaa ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay shir ay suurtagal tahay in muqdisho uu ku dhex maro dhinacyada villa Soomaaliya iyo mucaaradka iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya oo in muddo ah shirkaasi ajandihiisa waxay raaxilgan ay fasaxday horeyna ay mucaaradku guddi ugu saareen xilligan dowladda federaalka Soomaaliya ay aqbashay inay miiska timaado iyadoona daqiiqadii ugu dambeysay uu ku jiro in shirkaasi uu muqdisho ka furmo waxaa lagu wadaa in muqdisho ay soo gaaraan wafdi heer caalami oo ka socda jamhuuriyadda Turkiga kuwaasi oo dhexdhexaadiye ka noqon doona shirkan sidoo kale waxaa ku weheliya Mareykanka iyo Ingiriiska haddaba shirkan ayaa waxa uu yahay ajandaha ugu weyn ee muqdisho maadaama dhowr jeer ay ishor fariisteen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xubnaha mucaaradka kuwaasi oo intooda badanba fashil ku soo dhammaaday xilligana aan la saadaalin karin waxa ka soo bixi doona kulan dhexmara villa Soomaaliya iyo mucaaradka oo si weyn ugu kala tegay arrimo ay ka midka yihiin doorashooyinka dalka dastuurkii dhowaan ay dowladda Soomaaliya meel marisay iyo waxa loogu yeeray burburka hantida danta guud oo si ba'an uga socda caasimadda isla markaasina lagu dhaliilaya madaxweynaha xilligan villa Soomaaliya uu joogay xasan sheekh maxamuud inuu guud ahaanba xaraashay hantidii danta guud iyadoo hay'adihii xafiisyadaasi iska lahaa ay guryo kira ku jiraan kiradoodiina la bixin laayahay waa sida xogaha uu telefishinku helayo ay warinayaan dhanka haddii aan aadno maamulka Puntland warar kala duwan ayaa naga soo gaaraya oo xiisado ka taagan halkaasi waxay wararku sheegayaan in ciidamo dhawaan ay tababar uga furtay dowladda federaalka ee Soomaaliya qaybo ka mid ah maamulka Puntland raacii koobaad xilligan tababaradii loo soo gabagabeeyay iyadoona maamulka Puntland ciidamadaasi uu walaac xooggan ka muujiyay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan waxa ay shaacisay in taliska kontoniya afraad ee guud ahaanba Puntland inuu amnigeeda sugo ee federaalka hoos imaanayo laga aasaasay Garowe caasimadda maamulkaasi Puntland taliya Jimcaale Takarna laga dhigay taliyaha guutadaasi kontoni afraad taasi oo Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulkaasi Puntland uu af labadii qayla furtay kadib markii uu arkay inaysan jirinba wax gacanta ugu jiray waxaana xilligaasi uu sheegay in ay si ba'an isu difaaci doonaan maadaama uu sheegay in Puntland weerar lagu soo qaaday isagoona dhanka kale sheegay in Puntland ay xiriirka u jartay dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama uu ku eedeeyay inay faragelin ba'an ku hayso maamulkiisa sidoo kale haddii aan dhanka Jubbaland eegno howlgalla xooggan ayaa waxay ka socdaan maamulkaasi kuwaasi oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamada xoogga iyo saaxiibada caalamiga iyo daraawiishta maamulkaasi Jubbaland ay wadaan waxay wararku sheegayaan in qorshuhu yahay in deegaanada ay shabaab kaga sugan yihiin maamulkaasi guud ahaanba laga soo saaro si dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland gacanteeda loogu celiyo haddaba Jubbaland iyo federaalka ayaa isku haya maamuladaasi ama maamulkaasi iyadoona dowladda federaalka ay doonayso in guud ahaanba ay ka takhalusto hogaamiyaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dhankiisana waxa uu doonayaa in uu sii adkaysto dhowr iyo 10 sano oo maamulkaasi uu gacanta ku hayay xilligana gacantiisa uusan ka bixin saacadee saaxiibka koobaad ee Jubbaland oo Kenya ayaa si ba'an u diidan in Axmed Madoobe laga saaro villa Kismaayo iyadoona ay masaalixdeeda ku ilaashato Jubbaland aan dhahe Kenya
haddaba haddii aan eegno dhanka maamulka koonfur galbeed xiisado kala duwan ayaa laga soo sheegaya duleedka baydhabo ciidamada lafta gareen daraawiishtii hore ee koonfur galbeed ayaa waxa ay doonayaan inay qashqashaad ku sameeyaan magaalada baydhabo iyagoo sheegay wacadna ku maray in ay dib u qabsan doonaan magaaladaasi dhanka kale haddii aan tagno xeebaha badweynta hindiya walaac xoogan ayaa ka soo kordhay oo ku saabsan in xuutiyiinta yemen iyo kooxaha burcadbadeeda soomaalida ayba xilligan iskaashi ka sameeyeen sidii ay maraakiibta u afduuban lahaayeen lacagna uga sameynayaan maadaama lagu eedeeyey inay heshiis ku gaareen in maraakiibta ka soo cararaysa marimbiyoodka hormus halkaasi ay u fadhiistaan badweynta hindiya ayna soo qafaashaan oo xeebaha maamulka puntland ay la soo galaan puntlandna ay sheegtay inay si xooga ula dagaalamayso kooxaha burcadbadeeda kuna eedeysay in villa soomaaliya ay kooxahaasi bays u tahay ama ay aasaasto waa sida ay puntland ku eedeysay haddii aan u sii gudubno dhanka bariga dhexe waxaa gebageba maraya heshiiskii u dhexeeya maraykanka iyo iiraan kaasi oo saacadaha inagu soo aadan ama maalimada jumcada qorshuhu yahay in Geneva lagu soo afmeero iyadoona heshiiskaasi qodobo waaweyn ay ku jiraan qodobada ku jira waxaa ka mid ah in 24 bilyan oo Iiraan ka xayirayd ka hor dagaalka loo fasaxayo taasi oo ay ku gaartay guul dagaalkii ay dhawaan la gashay Israa'iil iyo Mareykanka oo isku dhinac ah balse waxa la leeyahay Mareykanka wax uu faa'iido ma jirto Iiraan ka hor dagaalkaasi lacagahaasi way ka xayiraayeen awood ay ku soo ceshatana ma lahayn hadda se dagaalkiina uu soo gabagaboobay lacagaheediina waxa la go'aamiyay in loo fasaxo kadibna marinka Hormuz ay si toos ah u fasaxdo dagaalkuna sidaas uu ku istaago guud ahaan taas ayaan ku soo afmeernay barnaamijkeena Xuuraansi oo xilligan aan qodobo xasaasi ah idin kula wadaagnay waa bahdii telefishinka TTN oo idin leh amaana Allah aad baad mahadsantiin